wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Mustafa Sheekh Cali Duxulu ayaa xalay xarunta degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir kulamo kula qaatay maamulka iyo qaybaha bulshada ee degmadaas waxaana si weyn looga hadlay arrimaha la xiriira amniga, nadaafadda iyo horumarka degmada. waxaana wasiirku halkaasi warbixino ku aadan amniga kaga dhageystay bulshada ku dhaqan degmada Warta Nabadda. intaasi kadib wasiirka warfaafinta oo ay la socotay gudoomiyaha degmada Warta Nabadda ayaa isla xalay hawlo kormeer ku tagay xaafadaha kala duwan ee degmadaasi waxayna socod dheer ku mareen wadada wadnaha iyo wadooyin kale iyagoona u kuurgalayay xaaladaha amniga, nadaafadda iyo horumarka ee xilligan ka jira degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir. wasiirka warfaafinta warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedada kormeerkooda. barnaamijka halkan aan booqasho ugu miday inkasta waajibaadna saaran yahay wuxuu daba socdaa barnaamijkii golaha wasiirada ay ku gaareen go'aanka in wasiirada loo diro degmooyinka caasimadda ay la shaqeeyaan gudoomiyaasha iyo cid kasta oo nabadda ka shaqeynaysa. barnaamijkaas ma noqon dooyo mid kaliya looga shaqeynayo gobolka Banaadir, laakiin waxaan aadi doonaa gobolada dalka, waxaan tegi doonaa mustaqbalka degmooyinka, waxaan tegi doonaa tuulooyinka iyo xataa baadiyaha dalkan waa la qaban doonaa, waa la nabaday doonaa. waxaan dhihi karaa gudoomiyaha Warta Deeqa waxay u tahay runtii tusaale magaalada wax badan ay ka qabatay, khaasatan degmadan waxay joogtay oo runtii dhibaato fara badan ay ka taagan tahay. maantana waxaan taaganahay saacadan waqtigan in meesha laga shaqeyn karo. dadka Soomaaliyeed waxaan u baaqaynaa inaysan ka niyad jabin waxyaabo yararka ay ka dhacay magaalada baryahan la soo dhaafay. dadka nabadiidka kulay qorshe u degsan, annagana qorshaha noo degsan waa dalka in la nabadeeyo, caasimadda in sharafteeda iyo karaamadeeda lagu soo celiyo, dadka Soomaalida ganacsatada ay dib ugu soo laabtaan ay invest gareystaan, diaspora inay ku soo noqoto. caasimadan waxaan insha Allah taala rajaynaa sharafta iyo karaamada ay leedahay inay dib u soo noqoto dhammaan dalka Soomaaliya sida ay noqdaan. annaguna runtii waxaan u heelanahay habeen maalin inaan shacabka la shaqeyno. si kastaba kormeerkan xalay uu ku tagay wasiirka warfaafinta degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir ayaa qayb ka ah dadaalo la sheegay in wasiiradu ay ku dhiirigelinayaan sugidda ammaanka degmooyinka gobolka Banaadir. maxamed Bilagele, Somsa TV, Muqdisho.